xambaarsan baaq nabadeed annagoo ku hadlayna afka bulshada ku nool magaalada Galbeed. Waxaan baaq u diraynaa wafdiga ka imaanayo Kismaayo oo uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxaan si cad u cadeynaynaa inaysan imaan karin magaalada Galbeed ee xarunta gobolka Gedo. sidoo kale waxay bulshada Galbeed uga digaysaa wafdiga Jubbaland haddii ay imaadaan in wixii dib ah oo ka dhaco magaalada Galbeed ay mas'uuliyadeeda qaadan doonaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Galbeed, kaasoo uu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Aadan. sidaa darteed bulshada Galbeed maanta uma baahna in la kala qaybiyo midnimada iyo wadajirka bulshada. maamulka Jubbaland oo jiro muddo 7 sano ah madaxweynihiisa ma soo booqan xarunta gobolka Gedo ee Galbeed, sidoo kalena kama aysan helin mansabkii iyo maqaamkii ay lahayd caasimadda gobolka ee Galbeed. madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu dhibaato ku hayaa midnimada ummadda Soomaaliyeed, taasoo ay daliil u tahay in uu xiriirka u jaray maamulkiisa dowladda federaalka ah oo ka shaqeyso isku soo duubidda dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. wargelin ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Galbeed iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ee jooga magaalada inay sugaan amniga dadka shacabka ah ee rabo inay muujiyaan shucuurtooda iyagoo u marayo dibadbaxyo ka dhan ah imaanshaha wafdiga uu horkacayo Axmed Maxamed Islaam ee ka imaanaya magaalada Kismaayo, kaasoo wax dan ah aan u haynin ama u lahayn guud ahaan bulshada reer Jubbaland, gaar ahaan kuwa Galbeed. dhammaad billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum. الحمد لله رب العالمين. بعض النوادر أنا أحمد عيسى علي وبدأ وجو مجال ماذا حتى قبل تذكر بهاي فأنا بشيء سيد بعض خلاصا أنا وحنا رمنا نبات مرة رمنا نبات تبغى حاجة كنتي مسؤولية شيئا هيو كشغالين هيو inay gobolkan dhibaateeyaan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. taasoo ogaanay horeyna u ogaanay wafdiga hadda imaanayo Kismaayo ka imaanayo oo madaxweynaha Jubbaland soo gaabinayo. annagu horey baan ugu sanadooday in 7 jeer ah yaanu damacnay inaanu soo dhaweyno oo runtii wixii xalay iyo wixii ummadda nolosheeda inaanu ka wada hadalno wuu diiday. haddoo eeba ku maqan tahay oo dhibaato dhacday oo dowladda Soomaaliya u sii xiriirkan u goynayo oo ummadda Soomaaliya u sii xiriirkan u goynayo asaga inta la halmaasho waan diiday. arrintaas mana soo dhaweynayno mana qaayn horeyna baaqaas waan u gudbinay sida ummadda Soomaaliya u sheegayna inay arrimaha ayaga ah ay runtii aanu qaadan karin, kana shaqeynayno nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed, kana shaqeynayno gobolkan Gedo sidii ummadda Soomaaliyeed oo degan. ma yeeli karno wax ummadda Soomaaliyeed dhibaato u keenayo. waanu wadnay ilaa dowladda ummadda Soomaaliyeed dowladda dhexe intay burburtay intaasaan soo kufaynay soo soconay. dadkii waa nabadaynaa, ummadda Soomaaliyeed baan nabadaynaa, gobolka inta joogtaan nabadaynaa. haddee nin xeer kala wato oo raba asagu inuu doontii lagu mari jiray ummadda ka dhigto oo mana dulqaadanayno. horeyna waan ka gaashaamanay, haddana waanu ma ogolin. sidaas ayada ah yaanu ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa, dowladda Soomaaliya aanu sheegaynaa. reer Jubbaland
dadka nabadda jecel aanu sheegayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. إله أكشفت النوافذ. إله شروة النقب. إله حقير ودنا النوكر. أنت سوى أنت وأنت أنا وبعضنا وجدين هي أنا كلا كويا بولا جامعة ودويها قبر كجرب هاري وجود بورتدا وراها جود أنا كلها قرباري وحان عدينا هي مامولكا كسمايو ما أقولين دباتو وطا دباتنا لمرة من قرباري ومدة الصوماليين لمرة من دباتو دولة ما مشاهدين إني دولة حق خصوصا تمد دولة أيضا هنكي هديلك عرقلتين هي أنه مرة بنو ومدة الصوماليين دل يدبدبه دولة أي تاجر سنت هاي وانونا لتي دولة دادني كحرير كأجري أنا وحرير كانوا جرني مرة من الدون ما إنه تجمد الجربهارين ما هو إيمان كرو هدو إيمانه وحنا دينا وشيء ما ملك الجربهاري هير دجمد يهرقو إذا ماذا وحنا وشيء نكاس هدو إيمانه أمنيجا مقالة وكبحايا إنه أمنيجا كبحيو الربا أديك كمسؤول المجال أما كذا حجية مرة من دباتو نكى دباتا وأنا إلى تكجو جسام بانو أنا وكنت أجري إن نبدلي بسم الله أنا بلشدي قيبة هذا كانت مالي دقمة قربهاري وحانو مقالاي ومعناي وفتي كاي معناي كسماية وطوني كلي هذا أحمد مذوبة أرنتاس بلشدي قيبة هذا كانت مالي شربي سوي مالين أرنتاس أيضا أهرين ورديني هذا نودينا مسؤول وين من السؤول دولنا أحمد مذوبة وحان وحوها تضبط هرجوجا كجبلان تضبط السنة أيضا هي وحان هو باقي إن نبضين ورواد درنا وأشياء أنا جينا نومو وحماجة نوي من وزير كيس واحد برشادة مع المحمد السلام فرينا ودينا واحد جواب كمان نهلين جوابتي كل كتير وكهل وحاي دولة فدرال كا حرير كبار وجرنا مرة هدو دولة فدرال كا حرير كوجري أننا السجن حرير كوجرني منا أقول منا أقبلين ما هو إيمان كرمش اللي يراه الجباري كمسو ما هو إيمان كر وحوج جوجنا ملك سلاس درادر عن ويسين إن لما غيبها قبل سنة بالجليدة إن يقطعن واجبات كودي والله المضي وها وعكستا أو عرقلت جليناية هب سمو صعد كبل شدة إن يكور تجار أرنتها سيدا وحاول عرقلت لو سمينايو ديجان كجربهاري أو النبضة أو وصل رئيس ديجان كجبلان أرنتها سيدا أساسا مسكوها فقصنا هاي ورمجيتنا وكسر صارني وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida uu sheegay oo dugsiga saxaafadeedka lagu sheegay in kala akhbaaraha ku saabsan sida walaasha ay sheegeen way ayadan anigu waxaan rabo wax yar oo rabay inaan iraahdaan dhaho maamulka Jubbaland barasaabka ugu sareeyo iyo xildhibaanka labada Jubbaland ka socday ayaamahan ku sugan degmada Galbeed sida ay waqtigii ummadani way kacdoontay wax way ka tabatay
madaxdaada oo ahaydeen waad u imaadeen waxay ka tabanayeen oo sheeganayeen wadooyinkay la taagnaayeen idaacadahay la taagnaayeen miidiyahay la joogeen dhibka ka tabanayaan iyo waxa ay rabaan oo dhan way sheeganayeen waxaad ahaydeen madaxdoodii waad u maqnaydeen kaalintaad u jirteen waxaa weeye waxaas ayaga oo dhan ciddii ay ka sugayeen inay ka jawaabaan baahidooda ayaad ahaydeen ummadaas kacdoonkii iyo waxyaalihii ay kala hortegaysay nidaamka Jubbaland qaab ka duwan ayay idinkaga tala gashay kaasoo ah inaad bal ugu yaraan xitaa tihiin dadka baahidooda ka jawaabi lahaa inta u imaadaan waxaasaa jira dhihi lahaa si nabdoonbaad biyihiin ku joogteen inkastoo guryihiin iyo reerihiin idiin joogaan shirweynaa la isugu imaaday bulshada reer Garbaharey saad ogtihiin aad qayb walba ka wareysanaysaan aad leedihiin idin dheheen war waad noo maqnaydeen waan qaylinay hadalladanadana waad maqlayseen maxaad noo haysaan waxaad ku tiraahdeen wax laga soo qaado iyo cid loo cawda midna ma jirto candhuuftiina dib u laqaad ku tiraahdeen sida madax dad dulman oo shacab ah u tihiin baan madax dulman u nahay baad ku tiraahdeen waa idinku aqbalnay ereyada noo adeegsateen waxaa ka mid ahaa war marxuumiintan idinka qayladiina iyo meelka istaagiina ha ku kicinina idinkaa u yeelaya magacaysan lahayn oo kicinahayo oo muujinahayo ereyada noo adeegsanayseen baa ka mid ahaa waa idinku aqbalnay inay sida ayadaa wax jira tahay baan u aragnay shirar baan isugu imaanay dhibaatooyin ka jira magaaladeena inaan ka cabano annagoo siyaasa iyo wax lamid ahoo dhan xagga iska dhignay ilaa dad ka jawaabi kara laguna mateli kara midna ma tihiin markii laga reebo in candhuuftiina dib u laqaa tirahdeen qofkuna dee mararka qaarkood waa inaad ku aqbasho wacyiga uu ku sugan yahay oo aad raalli uga ahaato aadan dhalaalin ereyada noo adeegsanayseen baa ka mid ah war hanan dhalaalinina waa idinku raacnay inayna idin dhalaalin sida ayada ahayd baan waxaan ku yeelanay shirar ah maxaa degmadeenna noodan ah inta laga gaarahaya giraanta xilligay wareegayso doorasho imaanayso isbeddel la helahayo dad loo cawdo ma lehe maxaa buqcadeena noodan waxyaalo badan baan isla meel dhignay oo aad ku mahadsantihiin siyaabaha aad uga qayb qaadateen oo ay ka mid tahay dhulkii layska oodanahayay ay ka mid tahay shidooyinka nololka ka taagan ay ka mid tahay dhulkii dowladda oo layska dhisanahayo ay ka mid tahay waxyaalaha ammaanka iyo security-ga la xiriiro ayaa waxaan uga wada sheekaysanay sidii dad reer Garbaharey noo siyaasa ayadoo wax siyaasa ay sii arrimaha ayaka ahaa si fiican wax badan baan ka qabanay meel baan isla dhignay laakiin arrimaha ayaka waa siyaasadaysan waxaad u adeegsateen reer Garbaharey waa dejinay afar wiil bay waxa meelaha ka qaylinahayay taalada intii sheegtay waxaa tirahdeen Garbaharey annaga ahaysano programka annaga waa siyaasadaysan wixii dadkii ka cabanayeen baad kusoo hogaamiseen oo iska jooraday gadanaysaan jooradaydiin iyo baaldidiin iyo dacaska qabays yaad waxaad u diyaarinaysaan ummaddan ay ka cabanaysay ay dhibaatada u sheeganaysay u jawaabi weyn ayaad u dacas gadanaysaan dacaska qabayska ah waxaa weeye adeerayaal waxaa idin leenahay way idinku aqbasho ummaddan inaynan waxba soo dhicininin eedna ayna ku lahayn waxaad siyaasadeysaan in kamiinayeen waa riyoonaysaan riyaad ku jirtaan riyada ayadaa ka baxa afar wiil haddaana idinku hana shanaynina hana nilahaynina afarteenna iyo isukaana daaya nidaamkaas isaga hana idiin muuqato ikraamka iyo deegaankiina waxa idiin yaalla iyo sidaa idinkugu turayno iyo sida madax dulman inaad tihiin idinkugu muujinayno ha idiin muuqato haddaysan idiin muuqanin dee wax walba annagu waan isu qabanaynaa waxaa weye dareenkeennaan muujisanaynaa halkaasaan la taaganahay war saxaafadeedkanaga waad maqlaysa wafdiga axmed waxaan leenahay axmedow markii lagu doortay madaxtooyada xafladu uguma qaban markii reer Garbaharey xaflad ku dhigay oo ku dhaheen xafladaba inta lagaaga dhigayaa noo soo hormar roogagaaga masaajidyo tuulooyinka laga dhisay yaa waxaan ugu dirnay deeq ahaan roogga adiga aan kuu diyaarinayno mayka reer iyo meelada roogag meelahaas aan u dirno masaajidda ha lagu sadaqaysto adeero maanta oo shimbirgeedu ida aad tahay siyaasad dhan ay dhammaatay ummadaad kusoo durugdo oo dan usoo raadsatay iyo aad tiraahdo wada shaqayn idinka dhexaynin aysan jirin inaad tiraahdo maanta waa u imaanayaa dee nama qabata adeerayaal waxaa weeye adeero meeshaada joog waktigaagana iska qaado kuu dhiman ummaddan ummaddii cabashadooda maahan martiqaadkooda aad diiday wey maalinkii ku ogeyd oo lagu boqray oo waxaa ta aan la ogeyn maalinkaasad ka diiday inaad imaado maanta oo daacaqurunka la isula dhacay dee halkaan imaansho ma jirto madaxda joogto waxaa leenahay marxuumiinta meelaha ay ku joogaan oo kismaayada oo hadda 2 kilomitir oo 5 bilood u dhiman ay ku nabadgelahayaan fikraddiina la aado marxuumiin isla noqdo ama deegaankiina iyo gurigiina waa joogtaan ummaddan badweynta danahooda ka leexda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay asxaabteeda wad u jeedeen war murtiyeedkii laga soo saaray Axmed Madoobe imaanshiisa
aadna wad u mahadsantihiin la socodkiina aad nala socoteen annaga reer Garbaharey haddaan nahay mowqif baan leenahay mowqifkaas oo ah inuu soo imaan Axmed Madoobe Garbaharey runtii reer Garbaharey waa mid qura dad la kala gadanaya ma ahan hadda ciidamada ammaanka dhammaan nabad sugidda oo dhan waxay u taagan yihiin inaysan dadka shacabka ay garab qabtaan aynan shacabkooda dhabar jabin annaga haddaan reer Garbaharey nahay dhalinyaro odayaal shacab hooyooyin intaba waxa weeyaan waan isku garab taagannahay waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu